madaxweynaha dalka Dr. William Ruto ayaa golaha wasiirada ee cusub ugu baaqay in ay shacabka u adeegaan isagoo sheegay in aan laga ogolaan doonin in ay shaqadooda ku guuldareystaan. madaxweyne Ruto oo khudbad ka jeediyey kadib markii uu goob joog ka ahaa dhaarinta golaha wasiirada oo ka dhacday aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi ayaa kula dardaarmay golaha wasiirada cusub in ay si siman ugu adeegaan dhammaan dadka Kenyaanka ah. wuxuu u xaqiijiyey kooxda cusub in uu si buuxda u garab istaagi doono marka ay xilka la wareegaan, isagoo sheegay in ay qaataan mas'uuliyadda si loo xaqiijiyo in maamulka cusub uu buuxiyo rajadii Kenyaanka. madaxweynaha ayaa dhanka kale ugu baaqay xukuumadda iyo sharci dejinta in ay ixtiraamaan, isagoo sheegay in marnaba marka dambaysa looga baahan yahay wasiirada in ay hor yimaadaan baarlamaanka si su'aalo loo weydiiyo loogana kormeero dadaalada lagu xaqiijinayo horumarka dalka.